barqa wanaagsan saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada bartayda Facebook ee Cabdirasaaq Cali Hiiraan waxaan idin soo gudbin doonaa wararkii ugu dambeeyay madaxweynaha Soomaaliya ee madaxweynaha dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo wadanka Turkiga u ambabaxay isla markaana safarkiisu ku sii haka doono dalka Itoobiya ujeedada rasmiga ay ka dambeeyda sababtoo madaxweynaha Soomaaliya ugu baaqanayo inuu halkaas joogo muddo saacado ah una hakado isagoo magaalada Muqdisho saaka ka qaaday diyaaradda Ethiopian Airlines isla markaana madaxweynaha Soomaaliya oo kulamo kula qaadan doono ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed magaalada Addis Ababa ee caasimadda wadanka Itoobiya Farmaajo ayaa la sheegay inuu ra'iisul wasaaraha Itoobiya kala hadlayo xaaladihii ugu dambeeyay ee Soomaaliya ka soo cusboonaaday maadaama saaxiibkiisa Abiy Ahmed uu culays ka saaran yahay dhanka iyo TPLF oo dagaal culus oo halka kaga jiro asagoo ra'iisul wasaaruhuna ka soo laabtay dhawaan furimaha hore ee gobolka Tigray oo kala dagaalamayay maleeshiyaadka haddaba madaxweynaha Soomaaliya ayaa ujeedkiisa rasmiga ah wuxuu yahay inay iska xal wareystaan wixii ku soo kordhay kulankoodii ahaa saddex geesoodka ee madaxweynaha wadanka Eritrea Itoobiya madaxweynaha Soomaaliya ay ku heshiiyeen inay saddexdoodu maamulaan saddexda wadan isla markaana wadanka ama awood kula wareegaan xukunka ama ay xeelad ku qabsadaan iyadoo arrintaasi saddexdooda marka laga reebo madaxweynahaasi wadanka Eritrea Siyaas Afwerki uu weli xukunka sii joogo si nabdoon balse labada kale ee saaxiibadooda uu dagaal xooggan kaga furan yahay wadamada ay joogaan fadlan haddii aad muuqaalkan daawatay share leh lana wadaag saaxiibada